بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال داوديال سودواada halkani waa bartaan ku leenahay YouTube-ka bartaan ku leenahay Facebook bartaan ku leenahay TikTok iyo qaranka TV Media haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ta iyo follow-da soo dheh baraheena YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok iyo Facebook waan ka codsanaynaa inaad follow gareyso muuqaalkana sii share gareysid muddo 8 bilood waxaa soconaya dagaalo u dhaxeeyay Falastiiniyiinta degan Gaza iyo sidoo kale Yahuuda inkastoo mararka qaarkoodna dagaaladaasi ay ku fidayeen daanta galbeed dagaalkaas muddada 8 bilood soconayo kadib Israa'iil waxa muuqata inaysan hayn wax natiijo ah oo ay la kulmayso guul darro marba marka si dambaysa si tiro badinaysa khasaaraha soo gaaraya ee ku aadan gaadiidka la gubayo dhimashada askarteeda ee tarabtarabka ah iyo sidoo kale dhaawac saacadihii la soo dhaafay waxyaabo cajiib ayaa dhacay kadib markii Falastiiniyiintu ay nolosha ku qabteen askar Israa'iiliyiin ah iyo kuwa meedo iyagoo markaas jiidanaya ay baahiyeen ciidamada xoogaga ee markaas ka howlgala Gaza ee Hamas guutooyinkeeda dabka sida waxyaabaha cajiibka ah waxay tahay daawadayaal muddo 8 bilood kadib Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay hal askari oo raggii maxaabiista laga hayay ama hal qof oo dadkii shacabka laga hayay ay soo siidayso bal iyadii ayaa hadda maxaabiis hor laga qabanaya oo ciidamadeedii inay wax soo furtaan rabay ayaa iyaga dib loo qabanaya taas oo ah runtii arrin mucjiso ah waxaad qiyaastaa 8 bilood Yahuud waxay dishay dad ku dhow 40,000 dhimashadu 37,000 ayay madax gelinaysaa dabcan waad qiyaasi kartaan waa tiro aad u badan 2 milyan iyo 100,000 ee halka ku noolaa barakac nafaqo darro raashin la'aan ayay muddo markaasi aad u weyn ee wajahayaan sidaas oo ay tahay adkaysigooda iyo dagaalka ay sii wadaan xoogaga muqaawamada iska caabinta Falastiiniinta marka la eego runtii wax kala ku soo baxaya in sir qarsoon oo awoodda Ilaahay ay halkaasi taalo ayaa ku soo baxaysa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagu mar walba inuu dagaalku sii socdo ayay danta ugu jirtay shakhsiyadeed marka la eego sababtu waxay tahay arrimo ku aadan musuqmaasuq iyo arrimo uu geystay iyo doorashooyin oo siyaabo kale isku dawamariyay ayay Yahuud u haystaan sida la ajilgeed ayaa ku keenaysa inuu mar walba isagu waqtiga sii jiido oo fidnadu ay sii balaarto dagaalku sii waxyo wuxuu hadba meel isugu qaaday wuxuu Iiraan u tuuriyeynay wuxuu maaragtay dagaalka inuu baaha u rabo wuxuu xataa Lubnaan marar badan Xisbullah isku dayay inuu madax maaragtay darsado haddii dagaalkan uu joogsamo oo lagu kala calaf qaado isaga kiis ayaa u bilaabanaya maxkamadeyn iyo howl ayaa sugaysa laakiin inta uu dhuumo karo ayaaba yar ayaa la leeyahay dad badan oo muslimiin ama dad badan oo caalamka ku nool wax isweydiinayaan maxaa loo eeganayaa Gaza waxa ka socda oo la aaminsan yahay in wadamada caalamka ama ha ahaadaan westernka wadamada reer galbeedka ama ha ahaadaan wadamada Carbeed haba ugu darnaadaane in ay si toos ah iyo wadamada Islaamka ay si toos ah uga gaabiyeen waxa halka ka dhacay inay wax taraan hase yeeshee dhanka kale awoodda Ilaahay waxa soo baxaysa in 8 bilood kadib godadka inta ka soo baxaan xoogagii guutooyinkii u dagaalamayay Hamas in ay sidoodii iyo guutooyin kale ururo kale waliba inay sidoodii hawlgallada ay u fulinayaan waxay beegsan karaan ay beegsanayaan waxay leey karaan ay leynayaan dabaabaadka wali ay gubayaan askarna ay baqa qabanayaan taas oo runtii ah arrin runtii mucjiso ah Israa'iil marka maxaa ku dhacay maxkamadda caalamiga ee adduunka waxay soo saartay warbixin ku aadan in Israa'iil joojiso marinka Rafah oo ah buqcad ka tirsan Gaza gaar ahaan koonfurteeda dhacda oo u dhaxaysa xuduudda Masar iyo sidoo kale iyo Gaza ee Falastiiniyiinta dagaalka inay duulaanka joojiso ayaa maxkamaddu soo saartay waliba maxkamaddu waxay isweydiisay in laba shakhsi oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay tahay in la soo qabto oo la soo xiro waxyaabaha kale cajiibka ah wali gantaalo tuuri ah oo ay qaadeen iyo weerar ay qaadeen ayaa Tel Aviv ku dhacaya oo ay geysanayaan Hamas taana runtii waa arrin kale adkaysiga ururada muqaawamada iyo shacabka Falastiiniinta marka la eegana waa dad aad u adag Israa'iil waxay waxa soo dad u leenaysay oo u bamgareynayay oo guryaha masaajidada iskoolaadka isbitaalada waxa soo u beegsanaysay in dadkan intay waxa weeyaan ay qabjabaan inay baxaan ayay u arkaysay qorshaha laakiin runtii meelna uma socdaan ciidooda ayay ku mitidayaan kiitii soo gashan halkaas ku shahiidaya kii kalena waxa weeyaan uu noolaanaya waxa soo baxay sidoo kale wadamada reer Yurub qaarkood oo ka dhiidiyay dulmiga
isla markaana hadda bilaabay inay ku dhawaaqaan inay ictiraafayaan dowlad madax bannaan oo Falastiiniin ah. dad badan oo caalamka oo aqoon-yahano leh oo maartay bahalkii awal dhanka Israa'iil u danaanayo reer galbeedka u badan ayaa hadda dhanka kale u jeestay oo dhahaya nabad si ay halka uga dhacdo waxa kaliya oo damaanad qaadi kara waxay tahay waa in la gaaro xalka labada dowladeed. taas oo dhigaysa in muxuu ahaa daanta galbeed iyo sidoo kale Gaza laga dhiso dowlad Falastiiniintu leeyihiin caasimadeeduna ay tahay bariga Qudus. arrintaas dad badan oo caalamka ah ayaa saas qaba. wadamada Carabeed kuwooda qaniga ah weli dhisan iyo kuwooda burburay toona way qaadan waayeen roolka ay qaadanayaan dowladaha reer galbeedka qaarkood Yurubiyaanka gaar ahaan kuwa inay ictiraafayaan sheegaya Ireland ay hogaaminayaan wadamadaas. runtii Israa'iilna meel wax guul ah oo ay sawirto oo dagaalkaas dad shacab oo badan inay leysay marka laga yimaado wax guul ah oo ay sawirto maanta oo ay hayso ma jirto. maxbiis ay soo furtay ma jirto. ururadii dagaalamaya Falastiiniintu isma dhiibin bal awoodoodu waa si siyaadaysa shacabkii gadoodsanaa iyo dadkii tacsiyadu ay galeen mar walba waxay baasiin iyo dab ku sii shubaysaa in taageero hor leh iyo ciidamo hor leh ay qaadato. sidoo kale waxaa soo baxaysa daawadayaal in Israa'iil hadda ay runta wajahayso oo ah in caalamku inta ka badan aanu dhayal ayadoo markii hore aad loogu soo jeeday ayaa yaaba dhawtay markii Iiraan ay tuurayso Iiraan weerar soo qaaday ba xogaa wadamada reer galbeedka qaarkood ajilad ayay gelisay. laakiin haddana hadda dadka waxa moodaa inay soo baraarugayaan arrintaas Gaza ka socota. dad badan oo muslimiin ah way kan jabsanaayeen si wax u socdaan ay qaarkood lahaayeen laakiin waxa laga yaabaa meeshan wax kale oo dadkan mustaqbalka inta soo socota dan u noqoto inay ka soo bixi doonto. sababtoo aan saadii leeyahay waxay tahay muddo ku siman 75 ilaa 1947 ilaa 1948 dadkan garaac iyo dhibaato ayaa lagu hayay. marka يعني marna ma nooleen guryahooda hadda daanta galbeed marka ay dhulkooda inta la dudumiyo ayaa dad Israa'iiliyiin la soo raray oo lagu deegaameynay. marka wixii October weerarkii ay qaadeen ka soo bilowday ilaa hadda dagaal aad u culus baa soconaya marka la eego dad badan oo galaaftay noloshooda 40 kun ku dhow oo dhinacaan kalena 3 kun kama yaraa la leeyahay Yahuuda. laakiin waxa muuqata in meesha lagu kala calaf qaadi doono oo waxa weeyaan mabaadiida dhahaysa Falastiiniinta laga adkaanaya meesha way ka baxday. si arrintan ay u joogsanto Israa'iiliinta qaarkood waxay qabaan halka laba dowladood in la gaaro si dagaal dambe halka ugu joogsamo oo qolo walbana ay nolosheeda ay markaas u qaadato. sidaas ay aaminsan yihiin. taana waxa la aaminsan yahay in ay keenayso waxa meeshan ka soconaya oo aan indhaha laga qarsan karin xasuuqa halka ka dhacaya oo ay dad badan ama wadamo badan oo caalamka ay dad badan oo xataa gaalada islaam isugu jirtaba ay ku baraarugeen waxaan wax socon kara inaanay ahayn. weli wadamada hadda ama shakhsiyaadka u tugtugle oo sida weyn uga hadlaya waxa u badanba dadka gaalada ah. islaamku doorkoodii waa gabeen dhammaan dowladaha muslimiinta ama carabta ahaadaan ama dowladihii kale awood lahaa oo xogaa la tuhmayay ha noqdaan. ilaahay isaga naga cilmi badan isaga wax walba waxa weeyaan ma taqaanaa hadee og qof kasta wixii dantiisa ku jirto ama mujtamac kasta oo islaam oo dantooda ku jirto kulli ducadii dadka loo duceynayay ma hareer marin laakiin insha Allah natiijadeedu way soo dhowdahay sida la qiyaasayo. Israa'iilna waji gabax iyo guul darro wax ay kala tagto oo halka maanta ay kala baxdo ciidankaas ay dhiiqada ay la gashay kala baxdo ay garan lahayd 8 bilood kadibna waxa soconaya askarteeda inay dhiig baxayaan la leynayo inay ka adkaato Falastiiniinta iska dhaafay in ay hadda dab arrintaas ay ku sii shubayso oo ay dad badan ku soo biirayaan. arrinta la yaab kale waxay tahay ururada xataa ka dagaalamaya bariga dhexe sida Hizbullah iyo ururo kale oo ayaguna ka dhisan Ciraaq iyo Syria dhamaantood waxay qaateen askar hor leh oo arrintan darteed ugu biirtay. Xuutiyiinta Yemen ayaa iyaguna sawir halkan kala hoyday isla markaana ku helay ama ku kasbaday askar aad u fara badan oo dagaalama ciidamadoodana ku biiray kadib markii ay ayaguna ku biireen dagaalkaas oo ay albaabka ama dariiqa Baabul Mandab ay xireen sidoo kalena ay tuurooyin kala gedisan ay Yahuud ay markaasi ku ganeen ama gantaalo cruises iyo ballistic missiles ay ku weerareen. daawada sidaad u aragtay fikirkaaga dhanka hoose nagu la wadaag insha Allah taala waa arkana wixii natiijada ku dambayso marka qaarkood warbixino ayaanu idinka soo gudbin doonaa.